Israa'iil ayaa doonaysa inay saldhig militari ka dhisato Somaliland, waxaana la isweydiinayaa sababta ay Israa'iil doonitaankeeda xilligan ugu soo beegtay. Dowlad Carbeed ayaana maalgelinaysa damaca Israa'iil. Geeska Afrika ayay sanadahan dambe ka jireen isbeddello waaweyn oo geopolitics-ka ah, sida ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil, gaar ahaan wargeyska The Marker ayaa daabacay in Israa'iil ay si weyn u danaynayso inay saldhig militari ka dhisato Somaliland. Wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa qoray, haddii aynu rajo ka qabno inaynu degno gacanka Baabilmandab ama albaabkiisa, waa inaynu degnaa Somaliland. Wargeyska Haaretz ayaa warbixinta arrintan uga hadlayay ciwaan uga dhigay indhaha oo dhan waxa ay ku jeedaan Somaliland. Waxyaabaha cajiibka ah ee maqaalka wargeyskan ku jira waxaa ka mid ah in Israa'iil ay dowlad Carbeed u xilsaaratay heshiiskaasi sidii uu hirgeli lahaa. Warbaahinta Israa'iil ee afka Cibriga wax ku qorta waxa ay sheegaysaa in sababta keentay doonista Israa'iil ay tahay dagaalka Xuutiyiinta, halkaasoo ganacsiyo badan oo Israa'iil ay lahayd ay hakad ku galeen. Israa'iil oo kaashanaysa Imaaraadka Carabta oo ka taageeraya dhanka dhaqaalaha iyo logistikada ayaa doonaysa inay saldhig militari ka dhisato Somaliland. Israa'iil waxay ku dhib qabtaa inay si dhammaystiran uga falceliso weerarada ay ku soo qaadaan Xuutiyiinta Yemen, iyagoo adeegsanaya diyaarado aan duuliyo lahayn oo samayntooda aysan lacag badan uga bixin. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaan ka bixi karin masaafadaas dheer iyo kharashka faraha badan ee halkii duqayn ku baxaysa xarumaha Xuutiyiinta Yemen. Somaliland ayaa ku taala meel istiraatiiji ah oo aad muhiim u ah, waana gacanka cadmeed oo ah marin biyood halbowlo u ah isku socodka ganacsiga adduunka. Gacanka cadmeed ayaa isku xira Badda Cas iyo Badweynta Basifiga, waana meesha ugu badan ee ay maraan maraakiibta shidaalka sida ee bariga dhexe ka yimaada ee Yurub ku socda. Sidoo kale Badda Cas ayaa iyaduna ah bad ay aad ugu loolamayaan Ruushka iyo Shiinaha oo isku dhinaca, iyo Mareykanka iyo xulafadiisa oo dhinaca. Somaliland ayaa sidoo kale kaabiga ku haysa marin biyoodka istiraatiijiga ah ee Baabilmandab oo ciddii gacanta ku dhigtaa ay saameyn ku yeelanayso isku socodka ganacsiga adduunka. Baabilmandab sanadkii waxaa mara 21,000 oo markab, taasoo ka dhigan in halkii maalin ay maraan 57 markab. Sidoo kale halkii maalin waxaa marin biyoodkan muhiimka ah la mariyaa 6.2 milyan oo barmiil oo shidaal ah, taasoo ka dhigan in 10% ganacsiga adduunku uu Baabilmandab maro. Israa'iil ayaa doonaysa inay saldhiggaas militari ka weerarto Xuutiyiinta Yemen, sidoo kalena uga hortagto dhaqdhaqaaqyada Iiraan. Dhanka kale, warbixinta ayaa sheegtay in Somaliland ay aad u danaynayso inay noqoto sida Djibouti iyo Eritrea oo kale, oo ay lacago badan ka samayso martigelinta saldhigyada quwadaha shisheeye, iyadoo sarifanaysa deganaanshaha iyo xasiloonida deegaanadeeda ka jira. Maadaama Soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah aanay xaalkoodu deganayn, sidoo kale waxay ku gurgurtamaysaa booska istiraatiijiga ay ku taalo. Somaliland waxay aad ugu hamuun qabtaa oo ay wax walba u samaynaysaa sidii ay aqoonsi caalami ah u heli lahayd.